بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك الله مالمها خير كبدنا نكوشرنو عبادة يا عمل كصالحة يا وناق يا خير كانوا فردينو الله ينو بركيو مدحنا جمهورية الصومالي لان مدحنا كحين كجمهورية الصومالي لان حمناها قولها وسير هذا مسؤولين تحليل كردوان كاي حكومة الثلاثة هيسا martida fadhida ee ganacsatada suuqa waaheen ee dhibaatada dabka ka soo gaadhay dhamaantiinba waxaan idinka mahad celinayaa waqtiga saad u ajiibteen iyo munaasabada sidaad u soo ajiibteen aayaadka quraanka kariimka ah ayaynu madasha ku furanaynaa si ilaahay noogu barakeeyo ujeedada iyo khayrka aan u soconana ilaahay uu ka dhigo midaynu ku guuleysano oo qarankeena iyo ummadeenaba sharaf u ah waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdiqaadir Xuseen oo aayadka quraanka kariimka ah مدشين وقده فردونا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا صدق الله العظيم وحنو يا قدوميها ركتا قناعسك الصوماليلان جمال عيديد إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين مدحوينها جمهورية الصوماليلان مدحوين كحجينكا حبناها وسير هذا يمدحنا كلام شفرده قرعسtada suuqa waaheen ay dibtu gaadhay inta maanta madashan ka fadhida dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidii aynu horeba u sheegnay ama caalamkuba markhaati ka yahay inoogu yimid ee indhahooda wax ku arkeen waxayna soo gaadhay masiibo qaran oo runtii ganacsigeennii iyo suuqii ugu weynaa jumhuuriyadda Somaliland oo marka la eego waddan waliba meel la yiraahdo downtown buu leeyahay suuqa hoose ama suuqa dhexe ee la isugu yimaado oo suuqii Hargeysa loo yaqaanay suuqa hoose ama dhexe ganacsatadeenuna ugu badnayd dibtii soo gaadhay ayaynu halkan u fadhinaa horaanteedii wixii aynu ka qaban lahayn ama aynu ka caawil celin lahayn wixii muxuu ahaa dhibaatadaas dadka ay soo gaadhay halkan waxaa maanta fadhiya 30 qof oo ka mid ah 988 qof oo guddida suuqa waaheen dowladda hoose guddidayada heer qaran ee taakulaynta iyo gurmadka suuqa waaheen aanu dhammaantayo isugu soo ururinay inay yihiin dadkii ugu jilicsanaa ay dhibtaasi soo gaadhay dadkaas 988 qof waxaa lagu qiyaasay lacagtooda qadarka ugu sarreeya inuu yahay $5,000 inta uu qofka ugu hooseeyana uu kaga gubtay meeshaas ama uu ku soo gaadhay dhibaatadu ay tahay $73 intaa u dhaxaysa dadkii ka koobnaa waxaa halkan madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland gartay inuu u hormariyo oo iyaga oo aan sugi karaynin hawsha kale ee guud ahaan loogu maqan yahay in dadka loo sii hormariyo waxoodii la siiyo oo gacanta buuxda maanta si ay noloshoodii ugu soo celiyaan loo horeysiiyo oo runtii aad iyo aad ugu muhaadsan yahay annagana inuu nagu dhiirigeliyey inaanu ka soo shaqayno inaanu dadkaas soo ururino oo aanu maanta halkan keenno dadkaas oo 30 qof halkan ay fadhiyaan oo iyaga lagu siin doono cash inta kale ee soo hadhayna banka dhexe uu ugu diri doono telefoonadooda qof walba mobilkiisa ayaa loogu dirayaa mas'uuliyadana waxa leh banka dhexe oo u qaybinaya runtii waa wax weyn inaynu maanta 900
iyo 38 qof mar labaad dabkoodii u shidno shaqadoodii ugu yagleelo oo aynu haddii rabo xukmaayo nidhaahno dhiirigelin ummadda inteeda kalena loo diyaargaroobayo oo loo qabanayo wixii loo karo waa horumar weyn intaasaan muxuu ku daahfurayaa waxaan ku wareejin doonaa cidda igu xigta waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah kelmadiisaan siinayaa maayir ku-xigeenka caasimadda hargeysa khadar nuur axmed cumar ahna kusimaha maayirka caasimadda hargeysa بسم الله الرحمن الرحيم وهرين مدحينها جمهورية الصوماليلاند مدحينها كحيينك جديدة هير قران سوق واهن جديدة جناح ستة هي سوق واهن ضدك كتب لوبي ما تورط إذا فرديا الحوالين أيو حلبانا ذو كلها ديجان كا قدوميها bangiga dhexe aqoon-yahanada jaaca muse jaamaciyo maxamed warsameeye tiimkaas aad iyo aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bilxaqiiqatan maanta waxa weeyaan waa arrin weyn iyo farxad weyn in dhaqaalihii inaga soo gaadhay ummadeenna kala duwan qeybaha kala duwan hadday noqoto ganacsato iyo hadday dowlado jaaraba noqotoba intii ugu horreysay maanta dadka si toosa loo gaadhsiinayo oo si dee daahfurnaana loo wada gaadhsiinayo bangiga dhexe jamhuuriyadda somalilandna si toosa u wada dirayo 30kii qof lays yidhi waa faneera bale way dadka sambal way noqon karaan ayaa halkan horteena fadhiya marka ilaahay waxaynu uga baryaynaa dhibaatada iyo musiibada weyn ee nagu dhacday in ilaahay xooluha maanta la siiyey inay dib kuwii ganacsiyadoodii u bilaaba inuu ilaahay ka yeelo oo aan xoolaha yare maanta la siiyey aanay dee ku bixine in haddana bal si ay dib noloshu bilaabi lahaayeen oo ganacsiyadii dib u bilaabi lahaayeen in ay halkaa hore uga wadaan waxaanu la dareennahay oo la damqashannahay dadkii suuqa waaheen hantidoodii ay ku burburtay haddaanu nahay golaha deegaanka caasimadda hargeysa mas-uuliyad iyo xil weynna waa naga saaran yahay ilaahay idamkii qarankeennu waa ka soo kaban doonaa ummadeennuna way ka soo kaban doontaa maxaa yeelay dhicidda dhibanayaasha waxaa ka mid a dowladda hoose oo xaqiiqa oo la doonaya laftigeeda in la xooleeyo oo dee dhaqaalihii ugu badnaa halkuu ka soo geli jiraya kirooyinkii halkeenu ku geli jirnaya ardayda halkii laga heli jiraya marka ilaahay idamkii qarankeennu waa wada guulaysan doonaa shacabkeennuna waa guulaysan doonaa waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland oo guddidaa heer qaran si cadaalada iyo si xaqa tiimkaa u wada in hawsha lagu taageero aad iyo aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan u yeedhayaa qadan xasan nuur oo ku hadli doonta afka ganacsatada maanta lacagta la guddoonsiiyey السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دما وحنا إذن كسلام يا سلامة إسلامك يعني إذن كسلام يا آدنا وحنا سلام يا أنا مهدنا قيا مدحوينه إن جمهورية الصومال لين مسبيح عبدي آد بان وقوم مهدنا قيا وحن مركه هرانا مهدنا قيا مركه هرا وحنا مهدنا قيا محن كل هذا إلهي الحمد لله إلهي بان مهدنا قيا مدحوينها مهدنا قيا waxaan u mahadnaqayaa maxaan ku raadaaye horta masiibada rabbaaniga ilaahay keenayna dawaa wax ilaahay loogu mahadnaqo weeyaan oo wax ilaahay keeno wax ilaahay loogu mahadnaqo oo dawaayo qadar ilaahay baa dhacay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa insha Allah billahi kariim muslimiinteena dhamaanteen iyo intii kale inagu dhex noolada masiibadu soo haleeshay inay insha Allah kuwii ka soo kabta Allah ka yeelo waxa kale aan u mahadnaqayaa maxaan ku raadaaye guddida madaxweynuhu u xil saaray ee maxaan ku raadaaye nin walba halku joogay sida anagoo 30 maanta halkan waxaan ku fadhinaa 30 qof 30 qof oo maxaan ku raadaaye sidii aan u sii kala hooseynay maxaan ku raadaaye aan u sii kala hooseynay iyagoo maxaan ku raadaaye nin walba halku joogay insha Allah ilaahay raali ka noqdo nin walba halku joogay insha Allah ku soo qoray lambarkooda magacooda nagu soo wada habeeyay nin walba halku joogay oo ga yeeray xafadoodii oo ga yeeray
nasoo qabanqaabiyey intaan na soo waday maxaan ku dhahday hawsha iyaduba ay soo gaadhay iyagana ay hawsha ay soo gaadhay haddana aanay toodii xasuusan inay taayadii xasuusteen ayaan guddida u mahadnaqayaa insha allah aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa guddida annagu 30 qof baan nahay dadkii waxaan nahay waaheen aanu sii kala hoosayna waxaan nahay dabaqadii u hooseysay baan nahay oo dee qofba wuxuu kolkaa haystaba u hantiya ma ogtiin ha yaraada ha badnaado laakiin dabaqadii u hooseysay baan nahay iyo intaasoo maanta inaga soo xuleen oo maxaan ku dhahdaa ayaamadaba noogu hawlanaayeen ayaan ugu mahadnaqayaa guddida waan u mahadnaqayaa maxaan ku dhahdaa ciidamada qaranka waan u mahadnaqayaa muslimiinta dhammaantood meel kasta ay joogto waan u mahadnaqayaa insha allah biillaahi kariim waxaan leeyahay guulaysta aakhiriya adduunyadaba guulaysta insha allah walaalaheena islaamka ee ayna soo caawiyeyna waxaan leeyahay maxaan ku dhahdaa waa wax idinka horeeya maxaan ku dhahdaa idinka horeeya dad baxsateen oo sadaqad weyn baad baxsateen dee waddan muslina kala dib maxaan ku dhahdaa waddan muslina caawiyana dee waa sadaqad insha allah biillaahi kariim ilaahay waxaan idinka rajaynayaa insha allah madaxweynaheenu ha guulaysto ciidankeenuna ha guulaysto guddida intaana soo hagaysay aan qolo noo eegin aan qabiil noo eegin aan hiblaayo noo eegin aan hebel noo eegin ee intaan nagu hawlanaydna aakhiriya adduunyadaba ha guulaystaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan kelmadiisa isna siin doonaa afka ganacsada xubin kaloo ku hadlaysa bashiir axmed ayaan kelmadda siinaya marka hore waxay ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka labaad waxa weeyaan halkan aynu sugnimo horta marka labaad ilaahay baa mahad iska leh mahad ilaahay baa iska leh waxa weeyaan halkan waxaa isugu timi ummad fara badan oo kala gedisan waxa weeyaan masiibadii ka dhacday waddanka ee waxaan ku yidhi ballaadhnayd ee caalamka iyo afrika iyo eeshiya baa la yaabay waxaan ku yidhi halista ahayd baa isugu keentay markaa waxa weeyaan halkan maanta madaxweynihii baa fadhiya iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo guddidii u xil saaray arrimahan kala gedisana masiibooyinkan ka dhacay suuqa weyne waaheen waxaan leeyahay markaa iyadoona halkan markaa ay taasi isugu keentay inaynu maaragtay marka horeysa ilaahay naga xawilo marka saddexaad waxaan leeyahay guddidan isugu timi halkan ee hawsha ballaadhan ee ka dhacday waddankan somalilan suuqa waaheen loo xil saaray aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waayo hawshii ay lahaayeen way dhigeen dantoodii way ilaaween wax walba way iska dhigeen ummaddii halkaa isugu timay masiibadu ku mahabsatay ayay u guntadeen waxa weeyaan halkan ay fadhiyaan horteenna waa ragga waxaan kuulay intayadaa imika wada socotay aan isgaranayn qofba meel ay uga yeedheen qofna qof aanu ogeyn waxa weeyaan waynu u ducaynaynaa guddidaa ilaahay khayra siiyo baanu leenahay waxa weeyaan halkan arrin baan yaro dhaafay madaxweyneheenii qaaliga ahaabaa halkan fadhiya iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo wasiirada kala gedisan iyo guddidan iyo guurtidan uu u dalbaday arrimaha magaranaysa iyo howlaha kala gedisan ee halkan fadhiya iyo saraakiishan ergisan ee ciidamadeennan ilaahay ha barakeeyo waxaan ku dhan walbay naga xiga waxaan leeyahay allah ha barakeeyo madaxweyneheenna qaaligaana ilaahay caafimaadka u siyaadiyo xaaladaheennu markay xaaladuhu sidaa u socdaan sidaa u dhacaan haddii aan waxaan ku yidhi gamcaan laysqabsan oo waxaan ku yidhi aan wax la noqon madaxweyne ilaa wasiir ilaa ka u hooseeya dee waxba noqon mayno war gamcaweyne jir bay wax ku qabsadaan waa kay wax ku dhacaan waa kay dhibaatada ku dhacdo waa kay wax kala hareeraan waa intaba haddii aan laysla guntan madaxweyne muxuu qaban karaa guddigu maxay qaban kartaa waxa weeye haddaba waxaan leeyahay halkan maanta anigu waxaan ka mid ahay dadkan yaree hoose magaranaysaa ee bacdiyaalkaa markaa waxa weeyaan ilaahay waxaan uga baryayaa horta guddidan madaxweynuhu xil saaray howlahan dalagisan ka dhacay magaranaysaa masiibada ka dhacday suuqa waaheen
ilaahay waxaan uga rajeynayaa caafimaad iyo cimrigooda ilaahay bashbash iyo barwaaqa intay nool yihiin allah ku barakeeyo allah ku barakeeyo waxa weeyaan magac iyo maamuus bay laga mudeen iyo duco waxa weeyaan haddaba ilmaadeerayaalo waxaan leeyahay aan hadal ku soo gabagabeynayaa inaan magaranaysa aan aynu dee halkaasaan kaga haray waxaan ku soo dhaweynayaa guddoomiyaha guddida heer qaran ee taakulaynta abaaraha aan idhaahda gurmasada suuqa waaheen sheekh cabdirasaaq xuseen cali albani wasiirka diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda somalilan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مدحوينها قرنك جمهورية سومالان مدحوينة كحجينك حبنا قرى وزير رضا حبناها قددا gurmadka iyo taakulaynta ee suuqa waaheen xubnaha dadkii ku tabaaloobay suuqa waaheen iyo dhammaan marti sharafta kaleba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu. salaan ka bacdi maanta waa maalin weyn waa maalin aynu isugu nimi in madaxweynuhu uu maanta halkan ku guddoonsiiyo dadyowgii wax ku noqday ama ku tabaaloobay suuqa waaheen qeyb ka mid ah oo ah qeybtii ugu nuglayd dhibta iyadoo dhammaan dadkii halkaa wax ku noqday oo dhami runtii dhib ballaadhan ay soo gaadhay. mudane madaxweyne waxaan ka horeysiinayaa in aan mar labaad halkan ka sheego warbixin kooban oo guddidii aada magacowday ay qabatay. mudane madaxweyne waxaa aanu magacownay xubno guddi ganacsi iyo culimo oo muhiimadoodu ahayd inay soo ururiyaan qaadhaanka ka soo ururiyaan bulshada qaybaheeda kala duwan si loogu deeqdaa loo gaadhsiiyo dib u soo nooleyntii suuqa waaheen. laba waxaanu magacownay guddida xog ururinta ee suuqa waaheen oo ka kooban 24 xubnood oo ka kala timi dhammaan qaybaha kala duwan ee ganacsiyada suuqa ka jira. 3 waxaan diyaarinay warbixin rasmi ah oo khasaaraha uu keenay masiibada dabku ee suuqa waaheen oo dhacay 1 bishii afraad 2022. 5 guddida iyadoo kaashanaysa maamulka dowladda hoose Hargeysa waxay xidhay dhammaan 11 waddo ee soo gala suuqa marka laga reebo 2 waddo. 6 waxay diyaarisay 6 suuq oo ku meel gaadh ah kuwaasi oo ay ka mid yihiin beerta xorriyadda, xerajaada, injida, hadhwanaag, laynka booliska oo aan ugu talagalnay in ay si ku meel gaadha ugu sii ganacsadaan dadkii ka barakacay suuqa oo diyaarinteedu iminka ay gebagebe tahay. mudane madaxweyne waxaanu diyaarinay liiskii iyo xogtii dadkii dhibtu ka soo gaadhay masiibada dabka suuqa waaheen iyada oo hadda lasoo dhammaystiray fayskii koowaad ee liiskaa laakiin diiwaangelintu weli ay socoto. markaa waxaanu soo saarnay liis hordhaca
oo aanu maanta halkan intii ugu jilicsanayd ugu talagalnay in aad ku guddoonsiisid qaadhaankii soo ururay. guddidu kulamo kala duwan ayay la yeelatay dowladaha caalamka qaar ka mid a iyo hay-adaha caalamiga ah iyo UN-ta. guddidu waxay wafdi ballaaran u dirtay shir ka dhacay magaalada Nairobi, shirkan oo lagaga hadlayo dib u dhiska suuqa Waaheen, waxaana shirkaa ka soo qayb galay wadamada dhanka horumarka kala shaqeeya Somaliland. mudane madaxweyne, waxaa maanta hortaada taagan 30 qof oo aan ugu talagalnay inaad maanta halkan ku guddoonsiisid qof walba adduunkii kaga lumay suuqa, taas oo lacagtooda ay ka bilaabayso $5,000 iyo wixii ka hooseeya oo ku siman ilaa $770 oo inta tiradoodu ka yar tahay lacagtoodu ka yar tahay 500 loo dhammaystiri doono, 500 loo gaadhsiin doono. waxaan mudane madaxweyne ay ku faraxsan yihiin in intii kalena oo tirada guud oo isku ah 988 soddonka mooyaane inteedii kale waxa aan u xil saarnay banka dhexe Somaliland inuu qof walba uu ugu shubo lacagta moobilkiisa hadduu zaad yahay iyo hadduu dahab yahay in halkaa lagu gaadhsiiyo. hawshaana waxaa fuliyey banka. sidaa awgeed mudane madaxweyne ku soo dhawow. waxa weeyaan kelmaddaadii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta halkan waxaynu isku nimid inaynu bilowno hawshii waxu qabashada dadkii tabaaloobay oo bilow ah oo soco doonta ilaa inta aynu ka dhammaystirayno waxyaalihii dabkii inoo geystay, hadday dhismo tahay iyo hadday horumaro tahay iyo dalka oo dhan baraarujintii uu nasiyey dabkaasi waxyaalaha aynu ka qabanno mustaqbalka oo bilow ah ayaynu maanta nasiib u helnay inaynu halkan ka bilowno tallaabadii u horreysay. masiibo kastoo timaada waxaa laga bartaa cashar. dadku waxay idhahdaan horumarku wuxuu ku yimaadaa oo dhibaatooyinka hadduu ka yimaado baa kolba midii kuu timaado sida loo xalilo ayaa lagaga baxsaa dhibaatada moo soo socota. waxuna waa imtixaan. dabkaa ka kacay suuqa Waaheen waa imtixaanada laynagu imtixaamayu ka mid ahaa. ilaahay uga mahadnaqaynaa dad nagama dhiman. wax walbana nafta baniaadmiga u qaalisan, dadna dhaawac culisana ciddan kama gaarin. wixii dhaawac ahaana way noo wada bogsadeen, way fududahay. hanti baa nagaa luntay. hantida qofka wixii ka baxay ilaahunbaa usoo celin karaa oo cawudi karaa. markay wax dhacaan dadku waxaa gurmadku kow ka yahay in loo xoologooyo. xoologooyintana waxaa loo eegeeyaa taag daran horta wax loo qabtaa. waxaa laga yaabaa qofka ugu lacag badan ee lacagta u badan ka baxday inay malaayiin tahay oo inaan lacagta una celin karin, nuskeedna gaari karin. laakiin ninkaa malaayiintu ka baxday waxaa ka dhib badan inta lasoo diiwaan geliyey qofkii ugu yaraa ee sheegtay lacag wixii uu haystay wuxuu noqday qofka haysta $370 oo Maraykan lacag u dhinta. ka iyo ka malaayiinta badan ka baxday waxaa caqliyadu ina siinaysaa kaa xoolaha la waxbaa u haradoo uu sii noolaan karayaaye kan 13 ka baxeen iyo waxa la midkii ee dabka shideen horta in xoologoynta laga bilaabo loo gurmado. sidaasay guddidu ku soo diiwaan gelisay. siday guddidu inoo sheegtay waa horudhac liiskani. wixii kale soo baxa ee inoo midana xogooda way helayaan marka la xaqiijiyo. hawsha la qabanayaa maantana waa intii ciidiga horreysay sheegteen. maxaa waajiba markay haddaba waxaanu kala caana inaynu maxay yeelno. kolka hore qof waliba isagoo lilaahi ah oo wax kale ku doonayn oo dar ilaahay qofka ayaa dhibaatada ka gurmanaya waa inuu ka hawlgalaa wixii uu qaban karaayo. ducaa ugu yar qofku taakulayaa ugu dar,
qof buu qado ka bixin karaa marka waxa weeye qofkaasi horta inuu isagoo isxilqaabo ta labaad qofna keligii iyo kooxi keligeed hawshan ma qaban karto khasaarahan dhacay iyo miisaanku lahaa waxaynu wax ku qaban karnaa iyada oo Soomaaliland ahaan aynu isku tagno oo inagu arrinta u galgalayno xooggeena iyo dhaqaalaheena iyo maskaxdeena meel wada marino si aynu uga soo kabano dhibaatada ciddii kolkaa inoo soo gurbataana waa alla mahadi waayo mahmaadu waxay tidhaahdaa arrinta nin kalaa u galgashaa tollo wuu erkaya marka caalamkan inoo imanaya waa kuwii ina erkanaya inoo soo gurbaday inageena saaranta waxaanu ka taxadiraynaa aan leeyahay waa qalad in qofku isagoon isagu waxba qabanin oon qofna 10 kuna Soomaaliana ku taageerin inuu isla yidhaahdo markaa dadkii maxaa loo qabtay oo yaad ku halaynaysaa dadkii maxaa loo qabtay adu maxaad qabatay intaad qabatay in lagu qofna ku dareeyay horta ka bilow maxaan qabtay anu laba war aanad hubin oo shaydaan kuu sheegayna ummadda ha dhex gelin waa la lahaa waa la yidhi oo ah xagga fadqalada u badanna aynu iska yarayno oo hal hubsado qofka dhibaataysan hooyada haysatay wax yar oo kaba yar maartay 400 kuna Soomaaliland ee caruurtii ku qadan tahay dhagteedu wuxuu soo caabo u gelayaan waa qof caadi fadaysan marka qofka islaamahu dadka tashwiish iyo naxli agil hadda wax ku tareen waxtarka laftiisa waa inuu wada maraa marka aynu niri ka u taajirsan iyo ka ugu faraha marale iyo qof waliba meel aynu soo tagno oo waxayna meel aan wada marino oo dadka si xaq sooraan wax ugu qaybino qofka garab maraya waxa yar uu sida cid gaala siinaya waa khalad halkan dadkii aanu ku toobaynay inay adduunka Soomaaliland ay lacag badan halka soo fariisto oo hebel ah wixii ay bixinayeen oo la xukumeena ahkamayro hayo yiraahdo way dhigeen qofka ama dibadda qurbaha ka soo ururiyo ama dhalinyarada halkan iska abaabuliyo wuu wanaagsan yahay inay dadku wax iska ururiyaan oo gurmadaan laakiin haddaynaan meel wada marinin waxay nagu dhacaya iskhilaaf badan waayo markaynu maanta in liiskaa guud la ururiyey ee la leeyahay dadkii haystay intaa aynu siino haddii marka qofkii intaa la siiyey lacag isku siban labada hablood sag fadhiya la siiyey oo gabar yar berida timaado ama meel ka yimid annaguna waxaan nahay hebel oo intaasaanu ku siinaynaa ilaa dadkii isagu ma wada yaqaana in yar buu yaqaanaa marka waxaan ku talinayaa qofka dadaalo wax bixinayo waxaad bixinayso guddiyada ku soo sho maxaanu labada guddi u samayn mid waxaan waa dawladda waayo dawladdu way organized way nidaamsan tahay way is amraysaa wixii warka waa la helaya dawladuna dawladaha la macaamila marka waxa weeye haddii waxaanu samaynay taaba inagu eegayna maanta maskaxda dadkeena guddida ganacsatada oo intii lacagta lahayd guddoomiye ka tahay haddaad shil hayso iyo haddaad boqol hayso iyaga u dhiib labadan account waa isku mid lacagta ala bixiyey ee dadku ururiyeen waa lacag qaran miisaaniyadday la mid tahay qof ma laha qof maamul maayo waa wixii qarankooda isu geeyey waa la xisaabinaya hanti dhowr wax xisaabin xisaabiya guud baa xisaabin auditka xisaabin publica loo soo bandhigi shilinkii la qaado waa in halkaa laga wada akhriya markaa taa ku soo dar aduu gaaro cid waxa u siin fadqalada ugu abuuraysa qofka gaar wuxuu ururiyo labada account marka dhaafta cid aaminay garan maayo waa nin fadqalada doonaya marka idinkana waxaan ka codsanayaa dadkii wax gaareenoo qofka gaar ahaan kuugu imanaya ila dadkeena waxba qaybsanaysa haddii gaar wax lagu siiyee halka dhexe aanu ka wada wadaagana xerada nagu soo wadsho teetana si sana loo qaybsano inay bilaan uga abuurno intaa waxaan ku darayaa cadowga Soomaaliland wax alliya wixii uu doonay dhibaato inuu soo dhextuuraya waxabuuna kala farfaraya ninka maanta tan kala farfara dee waa nin Soomaaliland xubeeda doonaya waa nin dadka wax loo qabta aan doonayn waa in nin aan doonayn in artimas wax lagu qabto maamulka guddiyada hadday wax ka qaldamaan haddii dadka cabanaya ay cabasha jirto imika elaysan ka maqanay qof kastoo islaaxa waa lagu dulbiyo lagu garab maray intuu waqtigiisa soo qorto uu guddidii laga soo bilaabay waa inuu yimaado oo uu soo xaqiijiyo oo uu markhaatigeeda keensado wixiisa uu helaya waa qof kastoo waa wax ka gaareen baa leeyahay qofka laga booday waa la qaldami karaa waa lagu ogaan karin
hadday jirta taasi waddo cad soo mar laakiin ha abuurin waxaan loo baahnay taasi waa iga waano ninkii taa kolka cana cadowgeenu buu shaqaynaya qurba joogga oo aada u dadaalayna waxaan leeyahay si midaysan wax u ururiya waa nasiib daro qurba joogga markay dibadda joogaan inay murmaan dadkii waaheen baa wax loo urinayaa waddo cad baa loo sameeyey hareeraha laga joogaa ka jooga laakiin si midaysan wax u soo ururiya iyo inaan cadowgeena maqlin bini aadmigeena tixgeliyo maanta eena soo tacseedeeyey ee noo borordiiqay waa dhowr iyo 40 dowladood waxay ku timid midnimadeena qarannimaynu arkaan dad kaleynu arkaan ninka wax kala farfaraya gooni wuxuu geynayaa amba dacaayada filaahi reebe bal halkeen marana qaar baa ku faanaya dadka gubtay anaga u badan oo midiya soo galiya ma wax lagu hadlaaba warshadaana ba gubtay maxaad ka kala faraysaa qaar baa lacagta cid bixisay anaga baano jaamac urfaa waa maxay waxaas waa qaran dubis ma aqli baa ma wax dhageystaa ma miir qaba waxaas waa ka baxan midiya dawladdu waa wada shaqeynaysaa waa la qura way kala sarreysaa dawladdu amarkeedu uu kala fulaa suuqa waaheen iyo ka magaalada Laascaanood iyo ka Ceere Gaabo iyo ka Burco iyo ka Berbera iyo ka Boorame iyo ka Hargeysa aragti baa lagu eegaya wixii dhacay uga tawaasheen qorshaha loo hayo halkan ayaa kuwa ka dhan la mid doonaya ka waaheen dhisan baa dib loo eegaya waayo waa 10 marka laga heshiyo saasaynu dowladaha waxa uu yeelaynaa cid waliba hawsha intereeday fulinaysa dowladda hoose mas'uuliyaddeeda fulinaysa taargeysa dowladda hoose hargeysa maamulkeeda iyada fulinaysa tabarbariyada iyada fulinaysa iyaa ku kormeeraya wasaaradaha ku shaqale marka nidaamkaas aan ku shaqeynayna dowladdu isma khilaaf karaan meel khilaaf ka dhacay imika oo la isku qabsay ma jira suuqa laga abuuray dowladda hoose ayaa la baroojinaya dowladda hoose waa meel hoose qaranka talinaya dowladda hoose taa qaranku sii qaadanaya intaa waxaan kala hadlayaa dadweynaha saynu ku wanaagsanayna wax noogu ururayaan aad iyo aad baan u bogaadinayaa sabirka aa keenteen dadka wax ku dhaceen miidiyaha dadkii ka hadlayay aad iyo aad bay dadkii xooluhu ka baxeen ee meesha ku gubtay oo weliba haweeno badnaa iimaan qab alla aamin mid waliba waxay tiraahdaa alxamdulilah nin wala xoolo ka gubteen kan malaa'iktu ka gubteen alxamdulilah ilaahay baa keena walaal heli kara xoolo laakiin dad aan waxba ka guban oo aan tirada barnaamij miir qaban baa fadqala abuuraha de jeero waxaan wax ka diiday taana waynu joojinaa oo dhinac ka wada noqono guddiga aad bay mahadsan xil badan iska saareen guddiga waaheen ee hawsha soo qabatay ilaahay ka tisaaysiyo wixii cabashaana wada saxi una adkaysto oo sabra dadkiina go'aankii aynu soo qaadnay wuxuu ahaa dadka wixii shan ku ka yar wuxuu dhanaan cilmi wixii ka yar 100 aan wasiino saddex todobaad ay ka gubteen 500 la siiyo waayo waa lacag babliga oo ummaddu soo ururisay oo loogu talagalay marka waxa waajiba horta ku waliita inuu ka daryeelo wasir ka daba celin doonaa taasaynu fuleynaa maanta lacagta la siinayaa ee baxaysa waxa weeye 1,872,000 iyo $512 aad iyo aad ma mahadsantiin idinka kooxdiin iyo dhammaan kuwa maqalina